roobka ayaa si weyn u go'aya oo dilaacaya degmada Narok ee dalka Kenya. Dhul dilaacan ayaa la sheegay inuu ishaysto tan iyo dalka Itoobiya iyo dhulka Canfartu ay degto. saynis yahanada cilmiga geologiga ayaa arrinkan ku micneeyay qabcadaha dhulka isku haya oo qayb ka midihii Soomaaliya hoos marto qaybta kalena degmada Nubi ee dalka Suudaan ay si kala durkayaan. Dhul dilaacan ayaa laga cabsi qabaa inuu sababo dhulgariiro waaweyn iyo fulkaanooyinka qarxa Afrika oo sababa in qaybo ka mid ah Afrikada bari ayba ka go'aanba qaaradda Afrika inteeda kale. Wadamada arrinkan uu saameynayo ayaa la sheegay inay ka mid tahay guud ahaan dalka Soomaaliya, qaybo ka mid ah dalka Itoobiya, qaybo ka mid ah dalka Kenya iyo qaybo ka mid ah dalka Tanzania. culimada ku takhasusay cilmiga geologiga ayaa ka cabsi qaba in dalka Jabuuti gebi ahaanba baddu ay soo gasho dalka Soomaaliyana uu noqdo jasiirad yar oo iyadoo qaarad yar oo la jaara Afrika inay noqoto. La wadaaga asxaabtaada si aad ula socoto barnaamijyo cilmiyeysan oo soo socda mustaqbalka.